tani waa kabtan Yasmin Cabdi Faarax oo xilligan ku dhawaad 30 rakaab ah oo aan ka mid ahaa ku duulinaysa madaarka Aadan Cadde safarkeennuna wuxuu ku wajahan yahay magaalada Dobley oo ay si maalinlaha uga safarto diyaaradda saytu oo Virginia kani aniyur mas'uuliyadda dadka adag saaran tahay sida naftoodina wax buu keenin oo meesha socdaan si fiican ku tagaan oo salaaminimo ku tagaan ayadoo balaayo jirin sidaasaytu mas'uuliyaddaas aan saaran مسؤولية دياردنا وين سارنتها دياردو وعلد هذا لا سوكو غانا هذا ملك كلا سوكو غانا وين سارنتها responsibility كذا وبدنا كم إذا ركابك ديارده وحي واحد وحكو عصب إن دوليها ديارده أي تاهي هويني سيدا سويتها وحي ديرجلين أموجيين كابتن ياسمين iyo aad iyo aad waxaan ku hambalyeynaa gabadha Soomaaliyeed oo ka duulaya diyaaradda oo taasoo macnaha nagu dhalisay inaan diyaaradda raacno maadaama ay tahay dadka ugu yar habeenka macnaha Afrika oo dhan oo diyaarad wax wado oo ay ku yar yihiin haddana waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa maadaama haddana ay tahay gabar Soomaaliyeed ee u baahan tahay waxaan geesinimo iyo diyaaradda macnaha ma ahan wax la iska wadaayo aad iyo aad ugu qanacsanahay inay gabar Soomaaliyeed ee diyaaradna wada duuliyana noqoto kabtan Yasmin Cabdi oo muddo badan ka soo shaqeynaysay Soomaaliya kadib markii ay dalka Kenya ka baratay cilmiga aviation-ka ama duulista shaqadani waxay mirdhal u tahay hanaan ay lahayd yaraanteedii duulinimo waxaan ku bartay iskuulka oo lagu baranaa jirto magaalada Nairobi Kenya and iskuulka sare dugsi sare markaas soo dhameeyay sidii dadka oo dhaqtar inay noqdaan oo rabaan قال lawyer nimo sidayn u rabaan sidaas camal duulinimo u rabay